amniga guud ee magaalada Muqdisho ayaa haatan mid soo hagaagayo iyadoona ciidamada ammaanka ay ku hoolan yihiin had iyo jeer sugidda amniga. Wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo la hadlay TV-ga Honkebel ayaa wuxuu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka ee Muqdisho in had iyo jeer ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. dadkana waxaan rabnaa inaan ku boorino inay amniga qayb ka noqdaan, ayaga ay ka qayb qaataan. ayaga hadaysan qayb ka ahayn amni lama sugi karo. askari kaliya amni ma sugi karo, ciidamada amniga kaliya amni ma sugi karaan. shacabku waa inay qayb ka yihiin, ama ha noqoto xog ay soo gudbiyaan, ama ha noqoto fooljignaan ay muujiyaan, ama ha noqoto qof wax fal samayn lahayo ay sheegaan, ama qof ay ka shakiyaan xitaa inay hay-adaha amniga ay la qaybsadaan. marka wax kale uma imaan halkan. waxaan ku joognaa sayidka inaan la ciidno dadkeena, aan la ciidno oo aan ciid mubaarak kula ciidno. wasiirka warfaafinta iyo waliba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxay ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sugidda amniga iyagoona ugu hambalyeeyay maalinta Ciid al-Fidriga. nabad baa jirta xamar, shabaab iyo shaydaan waa dhamaaday. ummadda Soomaaliyeed nolosha cusub, dalka cusub, dawladda xoogga leh ee Soomaaliyeed ee soo noqotay haloo dabaaldego. khayr iyo barwaaqo idin rajaynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada qalabka sida ay ugu horeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo runtii habeen iyo maalin u taagan nabadgelinta iyo amnigelinta iyo ilaalinta naftooda iyo hantidooda dadweynaha. runtii waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa Ilaahay nabad nagu gaarsiiyo. inta noogu dhaawacantay howlgaladana Ilaahay inuu caafimaad siiyo ayaan ka rajaynaynaa. amniga dadweynaha iska leh dawlad waa la sugaysaa oo kaliya. marka waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, xaafad, degmo, gobol, laan, fallar, intaba ay la shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeedna waxaan leeyahay la howlgala dadweynihii oo nala dhashay, aan ka qabnay caruurteennii. intaas waa waxaan u taagannahay. marka la isku soo wada duwana waxaa soo hagaagayo amniga guud ee caasimadda dalka, inkastoo mararka qaar shabaabku ay weeraraan goobaha ay ku shaqeyso dowladda Soomaaliya. Cabdiqadar Iimaan Dhaqane, TV-ga caalamiga ee Honkebel, magaalada Muqdisho.